kusoo dhawaada channelkeena waa Mahad Xigmaawi alaaba aad ku barateen barnaamijyada kala duwan inuu idin soo daayo maanta waxaynu ka hadli doonaa fanaanka caanka ee loo yaqaan Qamar Suugaani oo ah fanaan runtii geyga Soomaalida sinka kasta saacad kaste suuradiisa la raadsho misana si aad ugu faafay ayaa wuxuu aqal la yagleelaa ma la bilaaway ama la aasaasay marwadiisa caanka ah Nasiin Sooraan taasi oo arooskooda xaray toolo ka dhacay 50 February arooskaasi oo ku soo dhamaaday bashbash barwaaqo iyo reyn fanaanka caanka ah Nasiin Sooraan ayaa ah marwadii labaad u guursaday halka uu marwadiisii hore ahayd Ugbaad Aragsan halka mushaakilaad ay soo dhex galeen laakiin balse arooska xaray toole waa uu ka duwanaa aroosyadii hore sida ay warbaahintu sheegayaan ama arooskii hore u lahaa Ugbaad Aragsan fanaanka loo yaqaano Qamar Suugaani ayaa fanaan runtii heesihiisu ay ka caan baxeen dhammaan baadalabuurka maantuna ay badanka u dhiibaan heesiisa fanaankan ayaa marwadan uga timid London ayaa la saadaalinayaa in ujeedada ay uga timi inay tahay inay ka hayso saygeeda Qamar Suugaani halkaasi oo ay ku soo samaysteen baasaboorkii London wararka soo gudboonaada